rag waxaan ku maamulaya qalamo ku maamuusi mase inaanu nahay tollimana meertanoo tahay masallaha nimkaanii dhigayn midig ma saarayo xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid maxamuud saleebaan ramaax oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiska xarunta guud ee xisbiga ucid ku leeyahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland. xogayuhu waxa uu sheegay in kooto loogu xidhay enerjiga dalka shakhsiyaad gaar ah 2 sannadood oo buura 3 maalmood dabadeedna ay doorashadii dhacday oo 2 sannadood xukuumaddani runtii ay maanta madaxa ka jartay oo la geli doono ilaahay ayna gaadhsiiye sanadkeedii saddexaad waxaan marka hore qirayaa ama ummadda u sheegayaa inay xukuumadda kulmiye ku guuldarraysatay wixii loo yigmaday oo ah ilaalinta shuruucda habsami u socodka maadaama ay fulintii tahay dawladnimo hadday tahay gobollada bariga iyo hadday galbeedka tahay iyo hadday tahay hay-adihii dawladda ee gudan lahaa waajibaadkoodaba waxaan leenahay 2 sannadood fara madhan baa laga taagan yahay waxay si xun ugu tubatay shuruucdii dalka waxay ka been sheegeen oo ay markhaati ka tahay kala hadalka xukuumaddu ka kala hadlayso waxqabad la'aanta dhaliisha loo soo jeediyo inay ku cibro qaataan bay ahayd oo wax toosiyaane ka been sheegga iyo ummadda inay jaahwareeriyaan ayay runtii aan ku noqotay waxay la soo baxayso oo maanta la imanaysaa ma jirto dal horumar ma gaadho haddaanu birta shiilanin wuxuu ku shiilayaana waa energy haddii aanay lahayn dab isku filan warshadana inoo socon maayaan horumarna inoo socon maayo meelna gaadhi mayno way fiican tahay in la helo energy kaafiya dalka kaafiya hase yeeshee waxa meesha taalla waa ogtiinoo maanta burcaynu joognaa caynaba laascaanood soo wareeg badhan ceerigaabo halkaas sii dhaaf burco sheekh dangaan berbera hargeysa somalilan oo dhan waa ogeydeenoo mar baa la keenay marowaxado kuwaasna gacanta waxa loo geliyey ashkhaastii gacanta ku haysay ee brifetka ahayd iyo dhaqaalihii ka soo baxayba sidii jirid tamareed ayay iminka koono walba daadsan yihiin waana ka war haysan lacagta gashayna malaayin dollar bay ahayd maxay uga jeedaan inay ummadda wax ku tartaabaa loogu talagalay inaynu hawada ka dhalino layr baa loogu talagalay wax walba waa laynoo soo dhameeyey hay-ada aynagu caawiyey maanta waxa la mid a enerjiga madaxweynuhu maalintii dhoweed uu lahaa waa xor waxaan xusuusinayaa ummadda reer Somaliland hargeysa iminka dhibaatada ugu badan ee ka taagan ama dalkaba waa ogtiinoo albaabka wildan ma kicinaayo soolarna ma kicinaayo dabaylina ma kicinayso waa ogtiin halka inagu marayso albaabka marka la laxamadayo waa dabka halkii dabka tartan laga gelin lahaa ee nin waliba wuxuu haysta la iman lahaa waa ogtiinoo iminka hargeysoo kale sunpower bay u xidhantay ninka maanta ka wasiirkii waa ninkii shalayta sunpower ka ahaa managerka cadaalad ma samaynayaa waxa dhacay habeen hore gurigayga hargeysa ayaa laambadaa dabaddaa gubatay in la iigu xidho laba guluub baan doonayay inamadii xidhayay baa la xidhay madaxweynuhuna 7 ka hor wuxuu inoo sheegay inuu tartanka waddanka ama ganacsiga dalku uu xor yahay runtii waa nasiib darro hadalku markuu ka soo baxo madaxweyne ka soo baxo waa in la dhabeeyaa waa in laga amar qaataa maaha in waa ogtiinoo maanta hargeysa hal laambad ma xidhi karaan cidaan sunpower ahayn ganacsigaas ma xor baynu odhan karnaa xogayuhu waxa uu sheegay sidoo kale in xukuumadda Soomaaliland ku fashilantay doorashooyin dalkan in laga qabto
waxaa loo baahan yahay dalka badbaadadiisa in la helo siyaasiyiinta niqaabka xidhani inay niqaabka iska rogaan waayo dalku wuxuu marayaa xaalad adag buu marayaa hadday tahay doorashooyinkii lagu guuldaraystay hadday tahay waxqabad la'aanta hadday tahay dad baa markay xukuumadda ammaanayaan maanta yidhaahda dowladdu lacagtii bay ururisay dowladi lacag ma macaashto dukaan maaha dowladi waxay macaashtaa inay jahayso ummadda oo ay hor gasho tiina way ku guuldaraysatay bakhaar lacag laga buuxiyaana waxba ma talaayo maba qaba inay ka buuxdee waa in xisaab cad la soo hordhigaa ummadda reer somalilan muddadaa 2 sannadood ahayd xisaab celinteedii oo ay ummaddu ogaataa tii dekadda ka soo baxday kumay qornayn miisaaniyaddii tii kiradu kumay qornayn wax la macaashay kama ogin waxa weeye waana meesha 80% ay ka soo baxdo dakhligeena waxaan maanta halkaa ugu adkaysanayaa 2 sannadood ayay maraysaa sanadkii 3aad baa la gelayaa maanta sidii hore maaha ummaddii way soo jeesatay waxaan u diyaargaroobaynaa ummadda inaanu horgallo oo fadhiisanno dariiqyada oo kicinno annagoo xusbiyaa hoggaaminno tusnana mucaaradad adag runtii inaanay wax waliba ugu soconaynin muddadaa 2 sannadooda ummaddu waxay eeganaysay oo dhowraysay way ka soo rayn doontaa laakiin way ka sii dartay aan aad u dhibsaday hadalle ka soo yeedhayey wasiirka warfaafinta saaxiibkay maxamed muuse waxaan leeyahay burco idaacaddii lagama dhegaysto hargeysa duleedkeeda lagama dhegaysto tvgii waan ka warhaynaa halkuu maraayo inaad ku fillaataabay ahayd weligeed may dhicin xukuumadihii dalka ee kala dambeeyey ilaa cigaaldaayo dadaal badan baa la saari jiray waa waxyaabaha ku guuldarraysateen laakiin dhawaaqii dadka waxaa idinka asturaya tiifiyadan faraha badan ee wararka lagala soconayo laakiin wixii warbaahintii xukuumaddu lahayd ee maanta aad mas-uulka ka tahay inaad hanataabaan saaxiibkaa eegaynay inaad adigu dhaliisho gabboose iyo kuwa la midkaa maaha gabboosoo keliya maantaan ku celinayaa haddana waxaa loo baahan yahay dalka badbaadadiisa in la helo siyaasiyiinta niqaabka xidhani inay niqaabka iska rogaan waayo dalku wuxuu marayaa xaalad adag buu marayaa maxamed bashiir nuur greeg ariel TV burco